السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تقالي جميل كستا جوكتين سو دواد channel كيني حارونتا cuntada caafimaadka ama shukri bule lifestyle labadaba waa isku mid sida ay qaadin shukri ali dhahaa so insha Allah waxa ka fikiraya inaan ka dhigo shukri bule ama xarunta ku dayn doona insha Allah waa arki doontiin أصحاب تقالي جميل كستا دونك جوكتين هاي نجاه رجعنا إنا عافي مالي عين كل الله ينسيه إنا ميل كستا جوكتين إلى نبض إني قديقه نبض أكو جوكتين إسكر على اللقطة هذا الكيجا أما صومالي جيجا أصحاب تمان تاين حنو هايا إن توبيك يوم مهمة أو بالشدة أنت أقول حجر هذا وماش مكان سنتر كفوري وحيال بدن أنكو أركي dadka laga hay ciribta markay dhulka dhigaan wada dhahayn waxayna u badan tahay dumarkeena Soomaaliyada arkay dad badan inta si imaadan haltaas ciribta dhulka markii la dhigo aad iyo aad xanuun badan ka dareemayo maxaa keena rabaa inaan wax yar ka taabto waxaan usii guud gali doonaa vitaminyaasha u wanaagsan iyo exercise-ka u wanaagsan horta sida waqantiin heel pain salaha heel pain waxa waaye waxa keeno waxyaalo badan ayaa keeno waxa keeni kara kabaha xiran tahay ayaa marmar keeno waxa keeni kara qofka zaid haduu u buuran yahay oo obese yahay uu keena waxa kale oo keeni kara asxaabta qaaliga haduu qofka accident kale ama shil intuu galay way keeni kartaa waxa keeni kara marmar qaarkiis hadii vitamin D ga kugu yar yahay way keentaa ama calciumka waxyaalo badan ayaa keena asxaabta qaaliga qofkaas hadhow uu xanuunkaas u dareemaya badan aan waxaan fiirsaday dadkii imaada qof wali ma arkin caata ah oo meesha ka sheeganayo badankooda waxaan arkay dad wada hilib leh waaye hilibka ayaa badan dadka Soomaalida ku keena siba dumarkeena samarka waxyaalaha ugu guuda ku caawin kara ama ku dareemi kartid relief waxa kamid ah exercise kan wiilkan sameeynaa inay soo helay ina sidaas wiilkaas u sameeynaayo kale inta baashas maxaa lahaa tawalkaas inta dhigto lugta asaas dhahdid exercise ka aad ayuu qofka u caawiyaa waxyaalaha kale oo qofka uga guud baxi kara ama xanuunka ka joojin kara waxa keenayo waxa u wanaagsan qofka inuu maxal dhahaa massaging sameeyo oo qofka massaging uu tago waa sida sagxda massage gareynaya biyo qabow inaad lugta gashin kartid ama biyo kulul lugta kulul aku inta tawaal galisid aku waxin kartid aku xiri kartid waxa kale oo fiican qofka haduu hilibkiisa aad u yahay inuu hilibka iska jaro because qofka markuu hilibka xoog u yahay miisaankii ayaa saarayo pressure lafti marka naturally dadka lafaha ayaa ka gurma ayaa ka dhamaado qof haduu hilibkiisa aad u weyn yani dadka inta joogada xarunta dad badan ay imaaday intaas gabdhaha Soomaalida u badan yihiin darunta sheego linid ma arkin waxa wada arkay kullina hilib wada saarna hilibka iska wada rida ku hayay waxyaalaha ka caawin kara waxa waaye vitamin C ga wuxuu u yahay difaaca jirka ayuu kor u qaadaa uu ku caawinaya vitaminada kale u fiican waa vitamin D ga sa hore u soo sheegnay vitamin D ga ka dhacsan yahay isagana lugtaas heel pains waa helaysaa vitaminka kale oo wanaagsan oo lugtaada caawinayo waa vitamin B active waxa weeye dhuuxa iyo t-shirtka oo jirkaaga ka dhamaaday ayay iyada u tahay asxaabta qaaliga waxaan dhihi lahaa hilibka iska jara waxaan dhihi lahaa kale exercise ka wiilka sameynay waxaan dhihi lahaa kale vitaminyaashan qaata waxa kale ku dhihi lahaa massaging sameey biyo qabow lugtaada dhaxgali waxyaalaha dhan haday ka soo hadlaayay isku day way ku caafin doonaan insha Allah marka halkaas aan ugu guud jeenaya in wax ka faa'iideen asxaabta qaaliga la sheegaray dadka dad badan oo waxa jira Soomaali sida dumarkeena ayaa xanuunkan haysta ana markasta arkay imaadaan sheegaray videogan sidee haduu dadka uga faa'iideystaan hadaa rabtiin maxaa la dhahaa ina ila soo xariirtiin igala soo xiriira teleefankayga meesha soo jira dad badan ay imaado markasta alxamdulillah dad badan oo vitaminyaashii ku caafimaadeen way jiraan qaarna insha Allah sidii hore wax badan ayaa iska bedelnay ay dhaheen halkaas aan wasi guud baxaya waxaan dhahayaa wassalaamu calaykum wa rahmatullahi